guddiga qaran ee gurmadka iyo taakuleynta suuqa Waaheen oo ay weheliyaan guddida ganacsatada iyo culimada ee gargaarka suuqa Waaheen ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay dakhliga lacageed ee soo galay guddiyadooda intii masiibadaasi dhacday kadib. Guddidan oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda diinta iyo awqaafta oo si ku meel gaar ah ay ugu shiraan waxa ugu horreyntii halkaasi ka hadlay Muuse Ibraahim Salaaf wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Soomaaliland oo ka mid ah guddidaasi waxaana uu ka warramay dakhligii soo galay guddidooda goobaha uu ka soo galay iyo ilaa haatan kharashaad ka baxay. intii taakulada iyo aan wadnay maxaan ku raadayay iyo gurmadkaba waxaana soo gaaray lacag dhan 16 milyan 955 iyo $2 ayaana soo gaaray saa ka warqabteen 2 wiig ka hor ama 10 cisho ka hor meelaha dawladda Soomaaliland oo hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la bixiyay cawad celintii dadkii nuglaa oo runtii dadka aan ku qiimeynay inay yihiin aan u qaadanay category-ga $5,000 iyo wixii ka yar taas oo madaxweynuhu saambal u bixiyay intii kalena loo mariyay telefoonadooda banka dhaxna runtii arinta fududeeyay marka laga reebo kharashka ku baxay maxaan ku raadayay dadkaas taakuladooda iyo caawintooda oo isaan hore u saacinay ahaa $1,800,000 iyo $512 ahaa intii kale account-ka ku jirta oo dhan maxaan ku raadayay 15 milyan iyo 95,000 ayaa maanta account-ka ku jira oonu haynaa wixii kale waxa inta dheer kharashaad baxay oo isagu ku saabsanaa suuqyada ku meel gaarka ah oo ilaa 4 suuq oo ay kamid tahay xarajaada beerta xorriyadda deerka ku xiga maxaan ku raadayay harwanaag inji iyo maxaan ku raadayay 4 meelood iyadana iyo arisla iyadana ku baxay kharashka lagu soo qiimeeyay ay dawladda hoose runtii iyadoo emergency lagu jiro runtii dadaal weyn iyo tacab weyn ka galeen runtii laga warrami doono halka ay marayaan meel wanaagsan oo fiican maraya oo rajeynayna dhawaan inay furmi doonaan laguna hawlgali doono waxa iyaduna jirta kharash kale oo ku baxay nadiifintii goobta dhibaatada ka dhacday oo laga raray qashin aad iyo aad u badan oo ku dhow 1,500 oo Sinotrack iyo isugu jiray scrap iyo xashiish iyo wax gubtay kaana kharashkiisii ay guddigu dabooshay oo uu ku mid yahay isna kharashaadka baxay waxa isna kamid ah xiristii oo iyadna la xiray 12 wado oo runtii soo gali jiray isagana maanta 2 wado kaliya ay ka shaqeynayaan runtii marka inta laga reebo kharashaadka kale ee ku baxay nadiifinta iyo suuqyada ku meel gaarka ah kharash dakhliga maanta inoo yaala ee account-nadeena ku jiraana ay yahay 15 milyan 95,000 daqaas meelaha inaga soo kala gaareen waxa ugu horeysa مليونكي مدحونا جمهورية الصومال كنت دقيقة وجوري قرمت تاكلها و1 مليون 1 مليون ودولة جيبوتي أي كنت دقيقة هي شنبقلة كن شنبقل إيو سجال الضباط تكوني شنبقل $1 أي كذا كانتي إيو محنكور هذا أي 1 مليون ودولة الصومالية نجسوا جاري يكوبي 2 مليون طابقل العقد ويل بانكا الصومال الهيدا إيو أنت سوي حين نجسوا جاري دولتها إكسترنالكا waxa iyaguna jira hay'ado dawladeed oo iyagu deeqo iyo contribution iyo qaaraan runtii ku soo deeqay oo ay ugu horeeyaan ciidamada qaranka oo runtii geesinimo iyagoo marka horeba nafhurnimo iyo maxaan ku raadayay dadaal badan ku bixinayay taakulada shacabkeena iyo maxaan ku raadayay ilaalintiisaba haddana mushaharaadkoodii iyo kharashaadkoodii ka soo jaray lacag ku dhow $46,753 waxa iyaguna kamid ah ciidamada booliiska ciidamada asluubta ciidamada socdaalka ciidamada ilaalada madaxtooyada oo runtii iyaguna si wada jira u keenay lacago kala duwan oo ay u kala badnaayeen ciidanka booliisku ugu badnaa ciidanka asluubta ciidanka ilaalada madaxtooyada ku xigay ciidanka asluubta ku xigay ciidanka socdaalka ku xigay lacag dhan $27,932 ay keeneen waxa inta iyaguna ku xiga dawladaha hoose oo runtii gurmad weyn iyaguna keenay oo lacagtiina soo shubay oo ku deeqay sidii mar horeba shaaciyeen 2 wiig ka hor lacag dhan 1 milyan iyo 500,000 oo maxaan ku raadayay ay ka gooyeen kababkooga iyo taana lacagtaana account-kooda ay ku jirto oo diyaar ku tahay waxa iyaguna kamid ah wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada oo runtii iyaduna gurmadka ay keentay uu yahay 246 milyan Soomaaliland waxa kale oo kamid ah hay'adda ama wakaaladda horumarinta wadooyinka iyo wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo iyaguna qaaraan dhan $20,000 nagu wareejiyay
geestiisana gudoomiyaha guddida gargaarka iyo taakulaynta suuqa waaheen ee culimada iyo ganacsatada oo isna halkaas ka hadlay ayaa sheegay lacagtan maalintii waa ogeydeenno madaxtooyada aanu kaga dhawaaqnay waxay 8 milyan oo dollar lacagta hadda lacag 5 milyan ku dhow baa noo taala lacagayo badan ayaa maaragtay la inooga ururinayaa debadaha expectation kaanu filanayno ilaahay gacantiisa ku jirtaaye dawna ganacsatada lacagta aanu filanayno inay soo gaadho waa 15 milyan oo dollar ama wax ka badan bay noqonaysaa bismillaah albaari anagu qarash maanaan bixin wixina soo galay meeshii bay ku jiraan web page baa la sameeyay halkaas ka arki kartaan qof walba wax noo keenay halkaas uu ku jiraa halkaasana laga wadayaa ilaa iyo inta wixii la wareejinayay ee maaragtay dadkii loogu talgalay la siinayo insha Allah taala Cabdi Casiis Ciidid Cilmiye Cabdi Cumar Jirbi telefishinka qaranka magaalada Hargeysa.